xiisaha iyo xamaasadda taageerayaasha xifaaltanku ka dhaxeeyo ayaa soo bilowday saakadii hore. gagada kubadda cagta Engineer Yarisow Stadium waxaa xilli hore soo buux dhaafiyay taageerayaal aan xad lahayn oo xiisa gaar ah u hayay ciyaarta iyo xiisaha badnayd oo habeenkan caawa ah la ciyaari lahaa. gelinkii hore ee saaka ilaa gabaldhicii galabta geesna kama banaanayn gagada guusha iyo guuldaraduba lagu wada geedaaman yahay. gaarista goobtan lagu madalsanaa inay ka dhacdo ciyaar xiiso badnayd oo u dhaxaysay kooxaha Waaberi iyo Dharkeenley cid kasta umay fududeen in ay gaarto maadaama wadooyinka magaalada ay xirnaayeen sabab la xiriira ra'iisul wasaare Khayre oo ku casuumanaa furista kulankaasi. taageerayaashii dhibka u soo maray kaliya gaarista garoonkii kulan xiiseedku ka dhici lahaa kolba may arag kubadoo la baaso iyo kulan koonfurme kurba ka weyn oo kulankii baajisay ayaaba iska timid oo mar qura ayay korontadii tagtay. laakiin taageerayaashii xamaasadeysnaa waxay isku dayeen in aan laga quusan oo kulanka loo kaadiyo. nasiib darro korontada muddo saacad ku dhow bay sii maqnaatay taas oo quus gelisay kubaddii kama dambaysta ahayd ee dhex mari lahayd kooxaha midba midda kale ku goodisay in ay iyadu leedahay koobka sanadkan degmooyinka gobolka Banaadir. taageerayaasha oo waqti badan soo bixiyay uma suurtagelin in ay daawadaan kulankii ay ku haminayeen mar qura in lagu kala baxo. daawade waxaan kaaga tagayaa su'aal ah Waaberi iyo Dharkeenley yaa nasiib leh yaase nasiib daran oo ay tagista korontadan dani ugu jirtay ileen midba midda kale waatay ku goodisay diirashada dhigeede.